madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Cabduqaadir Axmed Cali Firdhiye iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. madaxweynaha ayaa munaasabadda ku tilmaamay bilow taariikhi ah oo lagu xoojinayo midnimada dalka, waxa uuna sheegay in dowlad goboleedka Waqooyi Bari uu yahay maamul ku dhismay dib u heshiisiin, wada hadal iyo rabitaanka bulsho, sidaasi darteed oo xubin buuxdo ka yahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cadeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si buuxdo u garab taagan tahay dadaalada nabadeynta oo ay ka mid yihiin sii deynta maxaabiista, furitaanka wadooyinka, xoojinta ganacsiga iyo walaaltinimo bulshada Soomaaliyeed. Waqooyi Bari waa dowlad xubin ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxayna leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale ee dalka. maamulka Hargeysa waxaan ugu baaqayaa in ay ajiibaan rabitaanka nabadda iyo walaaltinimada ay diyaarka u yihiin walaalahood Waqooyi Bari. ma nihin dad kala maarmi karo, waana soo tijaabinay in aanan lees maquunin karin. ugu dambeyntii, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay hay-adaha dowladda, kuwa aan dowliga ahayn iyo saaxiibada caalamka in ay si buuxda ula shaqeeyaan dowlad goboleedka Waqooyi Bari, isagoo uu ku dhiirigeliyay qurba joogta iyo aqoon-yahanada in ay ka qayb qaataan horumarinta deegaanada Waqooyi Bari.